shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom iyadna waxay maanta qayb ka ahayd shirkadihii ugu cadcadaysan markaasina wacdaraha ka dhigay carwo ganacsiyeedka lagu qabtay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal iyadoo markaasina shirkadda Telesom ay halkaas ay ku soo bandhigtay adeegyada kala duwan ay bixiyaan hadaba mas'uuliyiinta shirkadda Telesom oo halkaas aan kula kulanay ayaa waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay ka qayb qaadanayaan carwo ganacsiyeedkan laga furay maanta magaalada Boorame oo noqonaysa carwo ganacsiyeedkii abad ugu horeysay ee lagu qabtay magaalada Boorama hadaba mas'uuliyiinta shirkadda Telesom qaarkood hadaladoodina waxa kamid ahaa Rahmaan Rahiim runtii aad baan ugu faraxsanahay carwadan qiimaha leh oo maanta ka soo galay anagoo ah Telesom Company shirkadda taqaanaan ee runtii aad ka u balaaran wadanka oo dhan ku baahsan waxaan ku faraxsanahay inaan carwadan ka soo qayb galno iyadoo runtii aanu soo bandhigayno adeegyada aanu hayno aad ka u tirada badan leh discount badan aanu sameynay oo 50% ah insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaad si fiican uga soo qayb gashaan wax walba waa idin ku diyaar saadkii waa diyaar simkaadhadii waa diyaar 3G waa diyaar sidoo kale waxa diyaar ah internet free ah oo inta carwadu socoto aad uga heli doontaan dhammaan kamboonkan aynu ku jiro dhan si free ah haddii aad haysato mobilada saasoo kale 3G lagu isticmaalo ama aad haysato laptop wireless-ka ku support garaynaya